بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada saaxiibayaal waxaan rajeynayaa in maalin caafimaad badan qurux badan soo qaadateen sidii caadiga noo ahaydna taxanihii cashirkeenii barashada suuqa sarifka lacagaha qalaad ee loo yaqaano forex-ka noo soo socday cashiradeenna qaybta hadda aan ku jirno isbuucan waxa uu sheekeynaynay candlestickska waxyaabaha loo yaqaano ee ah luqadda suuqan qofka ka shaqaysanaya in uu fahmana la rabo waxa ay yihiin candlestick sida ay u samaysmaan marka ay samaysmayaan xaaladda nooce ah ay ku yimaadaan haddii kandhalada 10 nooc aan hadda baran doono hadduu ilaahay yiraahdo qaybo ka mid ahna aan hore u soo qaadanay haddii aan suuqa ku aragno fariin noocee ah ay noo sidaan ayaan rabnaa insha allah hadduu ilaahay yiraahdo caawo inaan wax ka falanqeyno waxna aan ka barano insha allah hadduu ilaahay yiraahdo kandhaladan marka suuqan forex kala joogo in badan waa ku soo celceliyaa waa wax aad muhiim u ah marka suuqan joogtid waxyaabaha loo baahan yahay in aad baratid ee qayb weyn noloshaada ka qaadan doono waxaa ka mid ah candlestickska oo ka caawin doona beri si aad u noqotid qof xirfadle suuqan heer ka gaara wax badan oo faa'iido ahna ka qabta xaqiiqo waxa ah in suuqan lagu qasaarayo waxaa sidoo kaleeto hubaal ah in suuqan lagu faa'iidi karo laakiin su-aasha koowaad waxay tahay mar walbo tallaabo walbo hore aad u qaadid markaa kuftid aqoon iyo khibrad ku gooriya ka qaadanaysaa taas macnaheedana marka haddii maanta candle hortaada ka muuqda ama fariin uu ku wado uu leeyahay suuqan waa suuq buy ah oo aad fahmi karin ama candlekaas macnaha uu u sameysmaado ogeyn waxay noqonaysaa suuqaasi ku nasiibso jihadii markaas ee kula noqotana u raac wasile kula noqon kartaa buy kula noqon kartaa waa sababta keenaysa marka qaar qofka inuu ku faa'iido marna uu ku khasaaro laakiin waxaa hubanti ah inta badan in qofka uu ku khasaaro okay sidii caadiga ahayd taxanaheennii hore waxaan soo baranay ilaa adiga 5 nooc 4 nooc ee joojiga aan soo baranay waxaan kaleeto soo baranay marabuzu iyo sidoo kaleeto spinning topska iyo hammer iyo hanging man iyo sidoo kaleeto inverted hammer iyo shooting star intoodaba haddii intaas keliya aad si fiican u baratid sida ay u soo baxaan iyo sababaha ay ku samaysmaan iyo nooca ay yihiin markay samaysmaan suuqana aad si fiican u baratid waxaan rajeynayaa in inta dambe ee soo socotana hadduu ilaahay yiraahdo ay ku fududaan doonto okay maanta marka hadduu alla weyn yiraahdo insha allah waxaan baran doonaa 2 ilaa 3 nooc oo kale oo nooca koowaad loo yaqaano engulfing candlestick oo u qaybsama 2 nooc oo ah bearish engulfing iyo bullish engulfing iyo sidoo kaleeto waxaan baran doonaa tweezer bottoms and tops kelimadan bottoms and tops waa kelimad af English ah marar badan kugu soo noqon doonto inta suuqan joogtid waa hoos iyo kor ama support iyo resistance ay ku noqon kartaa haddii sida kale loo dhigo bottoms hadaa maqashidna waa qaybta muxuu ahaa ii sheeg hoose topskana waa qaybta kore sidoo kaleeto noocyadii hore waxay ahaayeen kuwo keli ah laakiin kuwan waxay isku raacayaan si wada jir ah ama wadar ah noocyadii aan ka soo sheekeynay uu ka mid ka ahaa spinning topska hammerka iyo hanging manka iyo sidoo kaleeto 4 nooc ee doojiga waxay ahaayeen kuwo keli ah marka caawa qaybteena hadduu ilaahay yiraahdo waxaan noo bilaaban doonto kandhalada labada isku raaca kuwaasi oo aan rabno marka caawa inaan ka qaadano qaybtan engulfing candlestick loo yaqaano oo asaga laftirkiisa u sii kala qaybsama qayb bullish ah iyo qayb bearish ah labadoodana waa nooc sell iyo buy ah kelmadda bull iyo bearishka waa buy iyo sell waxba aysan kula noqonin nooc cusub saasna inay ila socoto rajeynaa insha allah hadduu ilaahay yiraahdo okay nooca koowaad marka haddaan ku bilaabno waxaa la yidhahdaa the bullish engulfing pattern oo ah candle marka suuqan la joogo forex-ka loo yaqaano bullish engulfing haddii kelimadaas aad maqashid bullishka waxaa la rabaa inaad u fahantid in ay tahay suuq kor u socda ama candle isbedel suuqa ku sameyn raba jihadii hore oo ku soo socdayna ka bedeli raba oo jiha buy ah u bedeli raba kelimada bullishna waa kelimad iibsasho ama buy ah okay qaabka engulfing bullish waa 2 qaab oo shumac ah oo tilmaamaya in dhaqdhaqaaq xoog leh laga yaabo inay soo socdaan waxay dhacdaa marka shumac bearish ama sell kelimadaas oo ku soo celceliyay bearish hadaa maqashid waa sell ah isla markaana uu la socdo shumac bullish ama buy ah oo weyn
shumaca labaad wuxuu dulmarayaa ama uu ka sareeyaa shumaca beerishka ah. tan macnaheedu waa iibsadayaasha waxay kor ugu soo qaadayaan awoodooda, taas oo muujin doonta in sellerska suuqa looga awood batay. xusuusnoo marka candleka noocan ah waxaa laga helaa downtrend ama downtrend dhammaadkiisa ama suuq jiha hoose u socda ayuu wuxuu kaa siinaa marka supportiga la joogo. kadibna haddii aad isku heshid marka labada nooc ee shumacyadan ah nooca koowaad kalarka guduudan waa candle sell ah ama hoos u socdo. nooca labaad ee bluegana waa candle buy ah. okay, bullish engulfingka sidaan oo kale u samaysmaa marka haddii aad isku heshid laba shumac ee noocan ah ee weliba suuq downtrend ku soo socda dhammaadkiisa aad ka heshid candle sell ah, kadibna gadaashiisa uu ka soo baxo candle buy ah ee xaalad noocana ku xirmay, fariinta uu suuqaasi ku wada waxa ay tahay suuq buy ah ama jiha kore u socda. sida inta idinkaga muuqatana suuqaani waxa uu aaday kor oo ah buy ama suuqa meel laga iibsaday. isla tusaalihii oo kale waxaan kuu soo qaatay shumacan bullish engulfing patterns loo yaqaano. wuxuu samaystaa sidoo kale wax loo yaqaano small shadow oo ah xariijintaas yar ee muhiimka ah in aad fahantid suuqa marka la joogo, oo weliba xataa mararka la samayso trend line-ka ee aad muhiim ay u tahay. marka shumac noocan kuu samaysmo oo korna small shadow yar uu ku leeyahay, hoosna uu ku leeyahay small shadow kaleeto, shumaca dambe gadaal uu isku buuxiyo ama qaab noocana uu samaysmo ee buy ah, candleka suuqaasi fariinta uu ku wada waxa ay tahay in suuqaasi uu noqon doono suuq buy ah. lana rabo markaasi in aad u fahantid suuqan isbedel inuu imaan doono. haddii aad markaasi suuqa ku jirtay oo aad sell ama hoos u soo raacday, isla markaasi fariinta ugu horeysa ee la rabo inaad fahantid waxay tahay lacagtaada faa'iidada ah suuqaasi isla markaasi kala bax oo jiha cusub oo kore ayuu suuqaasi bilaaban rabaa. badanaana waxaan soo sheegnay waxay ka dhacdaa dhammaadka downtrend ama suuq hoos u soo socda dhammaadkiisa, taas oo ku aadi karta supportiga xariijinteena hoose. okay, nooc labaadaa jira marka isla asagana engulfing candle ah. noocii hore wuxuu ahaa bullish, nooca labaad wuu ka duwan yahay, waa bearish candle. bearish candlena waa candle sell ah waay, sida kii hore uu ku yimaada marka waa kan cagsigiisa noqonaya. sababtoo ah kii hore wuxuu kasoo muuqanayay qaybteena hoose ee supportiga, sida hadda tusaalahan hoos idinkaga muuqda. xariijintan hoose waa xariijin support ah, xariijintan korena waa xariijin resistance ah. tusaalaha mar walba aan soo qaadanayn waxaan rabaa inaad fahantid markaan wixii aan ka sheekeynayo in hortaada muuqaal kooban oo kuu sharaxi kara in wixii xaalad ama markaas qaabka suuqa la joogo in aad u aragtid si aad uga qaadatid macluumaad kooban. okay, noocan bearish engulfing candleka loo yaqaana wuxuu dhacaa marka shumac bullish ama buy ah isla markaana uu la socdo shumac bearish sell ah oo gebi ahaanba ku daboolaya ama ka sareeya shumacii hore. tan waxay ka dhigan tahay in iibiyayaashu ay ka awood sareeyaan iibsadayaasha, isla markaana tallaabo adag ay u dhici karaan. xusuusno shumaca noocan ah waxaa laga helaa uptrend fiiro gaar ahna u yeelo. okay, shumaca noocan ah marka wuxuu cagsi ku yahay kii hore ee bullishka aan kasoo sheekeynay, kaasoo laga helayay suuq downtrend ah. kana cagsigiisu waa marka noocan loo yaqaano bearish engulfing candleka waxaa laga helaa suuq uptrend ahay oo isla markaasna soo kala wareegi rabo oo jiha hoose u soo socda. haddii marka tusaale aan suuqan ka soo raacay supportigan oo aan ka helay fariin bullish engulfing ah oo hadda intada ujeedi waxa ka muuqato bullish engulfing, kadib marka aan helo buydan, haddii aan suuqan raaco ee supportigii aan kasoo dhaqaaqay xariijinta resistance kor ii saara ay gaarto oo soo muuqdo candle bearish engulfing ah, isla markaana waxaan ku jiraa faa'iido profit ah ilaa intay doonto ha noqoto, oo markaas waxay ku xiran tahay bibiska ama lot size markaas suuqa aad la soo gashay. haddii xaalad noocan aad joogto marka sida caadiga marka waxaa dhacda in suuqa uu jabsado xariijintaasi resistancega, kadibna uu ku soo noqdo ama inuu hal mar toos u jabsado oo kor ugu badhici karto. laakiin fariinta noocana markaa heshid marka
xaalad resistance la taagan yahay candle-kana uu ku yimaado boqolkiiba 95 iyo wixii ka badanba waxay u dhowdahay in suuqaasi dib loo soo celin doono fariinta uu ku wada candle-kana waxa ay tahay fariin bearish ama iska iibin ah taasoo la rabo marka xaalad noocaana inta ay taagan tahay in suuqan faa'iido hoos ah u soo raacdid haddii aad kor ugu jirtana faa'iidadaada aad kala baxdid intaas waxaan rajeynaa inaad fahanteen oo wax dhib leh idinku noqon doonin qaybta hore waxay ahayd bullish engulfing candle iyo qaybtaan hadda ayadana ah bearish engulfing candle waxaa noogu xigi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo laba nooc ayadana loo yaqaano noocan tweezer bottoms and tops aan dhaha marka laba qaabo u samaysmaa candleka noocan ah candlada tweezer bottoms iyo topska waa candle kuu sida fariin dib u laabasho ah dib u laabashadana suuqa waa kasoo sheekeynay reversal aa dhaco marka noocaas xaalad noocaas lagu jiro suuqa waxay sidoo kale ka dhacaan uptrend iyo sidoo kale downtrend isla markaas fariinta lagu wadaa ayaa ah fariin isbedel ama in suuqa uu jihada bedelan doono fadhigana ka kaca oo ah macnaheeda indhahaaga fur u diyaargarow markaasi dagaal labada jiha noocu doonaba ha noqdee kii hore marka labadii hore candle aan kasoo sheekeynay oo nooca koowaadna downtrendiga laga helo iyo sidoo kaleeto nooca labaad oo asna laga helo uptrendiga kan wuu ka duwan yahay marka tweezer bottomska labada xaalad baa lagu heli karaa xaaladda uptrend wuu ku imaan karaa sidoo kaleetona downtrend wuu ku imaan karaa tusaalahana marka dhankaaga midig ka muuqda hortaada sawirka yaala haddaa fiirisid suuqan hoos kasoo bilowday kor kasoo bilowda andhehe ee hoos usoo socda qaabkan markii uu kuu samay marka xariijintaa si fiican u fiiri kandhalada weliba xataa hadda xariijina lagu mariyo si fiican ugu fahantid sababtoo kandhaladan kuwii ka horreeya aan soo qaadanaynay ee doojiga iyo spinitopska iyo mabusugaba waxay ahaayeen kandhala hal isku raaca laakiin qaybteenna way ka duwan tahay oo kandhalada laba isku raacayaan iyadoo saas ay tahay marka candlekan haddii suuq downtrend ah ama kor ka yimid hoos u soo socda xaalad noocan ah uu ku sawiro sababtoo candlekan markiisa hore uu bilaabanayay wuxuu ku bilowday in uu yahay sell oo wuxuu soo buuxsaday intii loogu talagalay kadib suuqa waxaa soo galeen buyerska oo soo celiyay candleki okay marka inta la marayo xaaladan marka waxaa dhacday suuqa in candleka waqtigiisa uu dhamaaday oo la xiray candleki marka la xiray marka saacadda ama daqiiqadaha labaad ee candleka dambe furmi doona haddii xaalad noocan ah ku aragtid sidii hore aan soo sheegnaba labadan candle ee hore waxaa loo yaqaanaa bottoms tweezer ama tweezer bottoms oo ah qaybaha hoos ama downtrend hoos u socda kasoo muuqda haddii marka xaalad noocan ah ku aragtid waxaa lagaaga baahan yahay waxay tahay in suuqaasi haddii aad faa'iido ka haysatid ama downtrend ah hore usoo raacday in aad faa'iidadaada kala baxdid taasoo ah fariin muhiim ah in la rabo qofka sababaha ayna ka mid tahay sababaha qofka uu u baranayo noocyada candle stiga iyo haddii candlada noocan ah suuqa aad ku aragtid maxaa dhici karo okay isla sidoo kale marka dhinaceeda kale waxaa noo yaala asna uptrend oo buy ku bilowday una socda jihada kor xaaladda markii la marayay ee meesha suuqa ugu sareysa la joogay waxaa meesha nooga soo muuqday tweezer tops candlada loo yaqaano kii hore wuxuu ahaa tweezer bottoms oo wuxuu ka yimaadaa badanaa qaybaha supportiga ama qaybaha hoose ee suuqa ayuu kasoo baxaa labadan candle ee loo yaqaano tweezer bottomska isla sidoo kale marka tweezer topskana badanaa waxay ku yimaadaan uptrend kasoo bilaabmay jiha hoose oo suuq hoos ka yimid oo kor u socda kadibna ku yimid xariijintaadii resistancega badanaa mar walba kusoo celceliyaa support iyo resistance labadaasi kelimidood ama xariijimaha noocaasi ee suuqan forexka lagu analyze gareeyo waa xariijimo aad iyo aad iyo aad muhiim noogu ah marka la joogo suuqan kaana caawin doona haddii aad si saxan u samaysatid in suuqan aad faa'iido badan ka samaysatid haddii aadan fahansanin aqoon aada u lahaynna wax badan oo faa'iida inay kaa maqan yihiin in aad dareemi doontid ayaan rajeynayaa haddii aad saas u fahansan tahay marka waxaa kuu muhiim ah kandhalada noocaana marka ay yimaadaan tweezer bottomska iyo tweezer topska xaalad noocee aa ku raadin kartaa marka haddii aan ku dhaho hebel tweezer bottomska intay ka dhacaan qaab noocee ku dhacaan markay samaysmayaan qaab noocee ku samaysmaan waa inaad fahmi kartaa oo la dhihi kartid
uptrend and suuq kasoo bilowday kor oo ah downtrend markii uu ku yimaado supportiga kadibna uu ku muujiya calaamadaha lagu yaqaano twister bottomska labada kan dhale israaca midka horena uu yahay sell kan dambena uu yahay buy haday xaalad noocaas dhacdo ay waliba support ka dhacdo area support adag ka dhacdo suuqaasi waxa hubanti ah in uu yahay suuq buy ama jiha kor aadi doono isla sidoo kale twister bottomska twister topska candleka waxa uu sidoo kale asna ka dhacaa suuq uptrend ah ee la jooga xariijintiisa kore ee resistancegaas laftirkiisa waa inuu kuu saxan yahay haddii resistancega qaabka aa u dhigato uu kuu saxsaneen waxaa imaan karta marka in kandhaladiyo samaysmay dib u dhac kugu yimaado ama aa wixii fahmi weyso ama aa akhrin kari weyso okay xaaladaha uu ku yimaadana haddii wax lagaa weydiiyo qaababkay u samaysmaan waa suuq kasoo bilowday hoos oo ah suuq uptrend oo buy ku socday kadibna resistance ku yimid haddii muuqaalka noocan ee loo yaqaano twister topska oo u samaysma markii hore uu samaysmaayo kandhalkiisa koowaadna uu yahay kandhal buy ah kandhalkiisa labaadna uu yahay kandhal sell ah xariijimo kor u jeedana leh sida cagsiga kan kale hadda garabka bidix gacantaada bidix ka muuqda twister bottomska hoose u jeedaan xariijimihiisa qalalan kana xariijiminkiisa waxay u jeedaan qaybta kore sababta loogu bixiyay bottoms iyo tops-ana taas ah haddii marka kandhalka noocan marka uu samaysmo ee uu isla siman yahay jirkiisa ama inta kandhalka markaas uu ku fadhiyo ama buy ama sell ha noqdo ee isla siman yihiin kandhalka ku horeeyana uu yahay kandhal buy ah kan labaad ku xigsamana uu yahay kandhal sell ah waxaa la rabaa markaas inaad fahantid in jihadii guud ee suuqa ay isbedel rabto okay tusaale kaleeta marka inta idinka tusaalahan saddex sawir oo waxaan soo qaatay iyadoo suuqii la joogo oo la analyze gareynayo oo xariijimankii kulligii ku sugan yihiin xariijinteena hoose ee gacantaada bidix haddaad si fiican u fiirisid sawirka weyn ee gacantaada bidix ka muuqda sawirkan weyn ee gacantaada bidix ka muuqda haddaad si fiican u fiirisid qaybtan kore xariijinta ku taala waa support resistance qaybtan hoosena xariijinta ku taala waa xariijin ayadana sidoo kaleeta ah aan dhahe support iyo resistance labadan xaaladood markaa taagan tahay xaalad hore wuxuu ku siiyey supportiga marka aad joogtid twister bottoms oo ah labadii kandhal oo hoos u fooraraan jirkoodana uu kor uu jiro suuqa markii hore oo soo bilaabmayana waxa uu kusoo bilaabmay xaalad downtrend ah isla downtrendka meesha uu kasoo bilaabmaya resistancegiisana waxaa meeshan kaaga soo baxay twister topska oo ah labadii kandhal ee aan rabnay noo caddeynaya in aan ogaano suuqan haddii uu yahay suuq jiha hoose u socday waxaan rajeynaa inaan intaas hadduu ilaah yidhahdo kusoo koobo kandhalada aaday u badan yihiin muhiimaddana waxay tahay in qofka uu fahmi karo sababta iyo xaaladaha markii kandhalo noocaana ay yimaadaan lagaaga baahan yahay in aa ogaatid muhiimadda ugu weyn marka waxay tahay qofka in uu ku celcelin badan uu sameeyo kandhaladii qaabkii u samaysmaan iyo tusaalaha marka lagu siiyo haddii lagu dhaho kandhalka noocan u samaysma ee jirkiisa hoosena isku buuxo korna xariijin noocana u samaysmay waxaa muhiima inaa ogaatid in labadan kandhal hortaada ka muuqda loo yaqaano in ay yihiin kandhalada twister topska isla sidoo kaleeta haddii dhinaca kale loo gediyo ee hoos loo soo jeediyana waxay noqonayaan twister bottomska taasoo micnaheeda ah in aa wax badan ka fahmi doontid hadduu ilaahay yidhaahdo marka aad joogto suuqan sarifka lacagaha qalaad qaybtiisa weliba technical analysiska in ay ku siin doonto information badan hadduu ilaahay yidhaahdo wax badanna aa ka fahmi doontid 10 daqiiqa noo soo hartay insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo 10 daqiiqa marka waxaan sameynaynaa wixii su'aalo iyo wixii hadduu ilaahay yidhaahdo markaas aa fahmi weyseen ayaan dib ugu celin doonaa intaan su'aalaha bilaabin insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo